Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madeeda qaaliga ah meel walbo dunida ka joogto waxaan idinku salaanta islaamka. Waxaan jeclaystay maanta inaan nila soo wadaago doolshaas yarta ah. Please haddii aad ka heshid like noo saar, commentiga waa xagiin. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka naga baqiilin, sii share garee si fiidiyoyadeena dad badan u gaaraan. Mahadsanidin. Haddana waxaan bilaabeynaa sidaan iskugu dardari leen iyo wixii aan ka sameeyay intaba ila daawada. sida arkaysaan bahad waxaa rabaa inaan ku shubo ukuntii. waa 4 xabo ukun ah. waxaan ku dalayaa bakeeri iyo wax yar oo sokor ah. waxaan ku darayaa bakeerigaas oo saliid ah. hal mar ayaa la isku wada darayaa. waxaan kaloo ku darayaa qaandadaas vanilya waa carfiso. afkaas horaan ku darayaa, wax badan marabi. waxaan kaloo ku darayaa bakeerigaas caanaha. intaas ayaan hadda insha Allah aan isku shiidayna sida cabitaanka oo kale. hadda ayaan shiidaynaa. hadda waa kaasa sidaasay noqday. marka u shiida sida cabitaanka oo kaleeto. hadda waxaan sameynayaa, waxaan soo qaatay bur ayaan kusoo diyaarsaday halkan. waxaan kaloo ku darayaa baking powder iyo xoogaagaasaan ku daray. sidaasaan si oo bakinkii iyo ay iskugu walaaqmaan maxaa la dhahaye iyo burkii. waxaan ku darayaa haddana ukuntii adduunyada ay isku shiiday. sidaasaa u walaaqaya. haddaa isdhaho burkaa kugu yar oo qoyaanka kaa badan, wax yar buraa gadaal uga darsan karaa. marka kasaas haabee maalmahan keekii waxaas ma sameyninbo. waa idinka yara yaa mashquulay. marka maanta waxaa is dhahay bal keegaan yarkaya maadaamay jimcana tahay xaafadda la iska joogo yaalka sabtiga hadda guriga iska jooga waa ku wada hooriya. si fiican uga jeediina u maleynaa. marka waxaa is dhahay keeg yaroo iska kasoo tuur. marka waa kaasa fiican oo aragtaan maahan. ma is dhahay inuu jilicsan yahay sidii la rabo waaye. hadda waxaan sameynaynaa saxankii aan ku shuba lahayna soo qabsanaynaa. marka diyaar waaye. maasha Allah tabaarakallah. saxankii aan soo qabsanaynaa. hadda waxaan soo diyaarsanay saxankii aan ku shuban lahayn. waxaan yaro ku bibiitinayaa. waxaa soo mariyay subag ama smoor sida u taqaaniin. marka waxaa yaro buran ku bibiifiya. hadda waxaa sameynaa sidaas ugu shubeynaa. waa ujeedin diyaar waaye. hadda foornadan gelinayaa. waxaan u taabanayaa
kor iyo hoos iyo insha allah 170 hadduu ilaa yiraahdo. markay soo baxdan insha allah waa isla arki doonaa siday noqoto iyo waxyaabaha aan kor ka mari doonana waa inoo iyo markii aan soo bixinayo hadduu ilaa yiraahdo. haddana waan gelinaya insha allah waa inoo iyo hadho. waa ganaa keekii asxaabe uu soo baxay uu kulul yahay. marka hadda dabool yara saareyna uu si qabooba inta kareenka u sii karsanayna insha allah. marka kareenku karsano oo keegana uu sii qaboobo on kareenka aan marina insha allah noo balan hadduu ilaa yiraahdo. hadda waxaan sameyneynaa kareemka kor aga dari lahay doolshada. waxaan ku shubayaa meesha sokor sida arkeysan. marka sokorta waan ku shubay sida arkeysiinba. waxaan sugeynaa inay si tartiib ah dabkan waxaa uga dhigay lambar 3 uga dhigay si oo aynan u karkarin sokorta. haddii sokorta gubato qaraaray noqonaysaa. marka maraba inay sokorta qaraar noqoto. marka hoos hadda inaa arkeysiin maaqaani wareegaas waa qaybta hoose way soo dhalaalaysaa. marka waxaan sameyneynaa si tartiib aan sugeynaa si ay u soo dhalaasho. kadib ayaan arkeysaan insha allah wixii markaasaan ku daraayo hadduu ilaa yiraahdo. marka haddaan fiirino hoos way kasoo dhalaaleysaa. waa geesaha arkeysiin maahan inay si tartiib u dhalaashaa fiican. marka waa sugeynaa si tartiib si ay ugu soo dhalaasho insha allah. sidaas yarta uu dhalaalayaa. marka waa kaasaa insha allah. waa sugeynaa ilaa intuu ka si fiican uga dhalaalaya hadduu ilaa yiraahdo. waa inoo iyo markaas markaasa saa arkeysiinbo si tartiib ah u dhalaaleysaa sokortii. markaasa hore niigu sheegaba inay iga gubato marabi. marka meelna muu ordooyi si tartiib ah yaa wax yaroo fiican oo macaan badan markaas waa sameynay. laakiin haddii aad dabka inaawiid u taabatid isla markiiba wuxuu noqonayaa way gubanaysaa sokortii. kaasa wax yar burburaha saa u jeediin way dhammaane way dhalaaleysaa iyadana. hadda waxaan ku darayaa wax yar oo biyo ah. dib ayay u dhalaaleysaa si tartiib tartiib ah ay u dhalaaleysaa sokorta. koogoor markaa biyaha ku shubtid waxaas leedahay waxaan oosaan u kagay maa wax ka soo baxaayo. laakiin maya si tartiib ah asaas u dhehaysaa. dabkan waa iskaga gaabinaysaa way dhammaanaya fahamti. marka noo orod sidaa hore niigu sheegay. saa aragtiin bosaasay noqonaysaa way dhalaaleysaa sokortii weyneed oo isku dheganayd aawar oo markaa biyaha ku shuba adkaaneysay. saa arkeysiin sidaasay u dhalaaleysaa. marka no stress.
هذا marka sida arkaysiinba waa diyaar waxaan ku darayaa insha Allah caano iyo warango oo isku qaso insha Allah ana waa kaasa warangadana waa tana qofkii yaqaano warango waxaan ka wadaa bahasha xalwada lagu kariyo waa ka siisiin wax yar aan ku daray kama badinaayo marka sidaas waxaa ugu qasaa xiro fargeetada kadib intaan ku darayaa si tartiib ah sidaas ugu darsanaysaa waxayro kuuskuusan iyo waxaasaa ku jiro laakiin way dhalaaleysaa majeedino waxaas dhan inay dhalaashaa loo baahan yahay waa wix geesaha ku dhadhaganaay oo soo fufuqay iyo marka haddana waxaan ku dareynaa ismoor ama subag markaas sida u taqaanid ay nooca haysatida isticmaali karta waxaan isticmaalayaa labadaas cad say subaga ama ismoorka way sii dhaldhalaaleysaa midii sida hore ma aha xabada ku dhex jiro wixii yar yarkoodna way iska dhalaalayaan subagana sidaasoo ugu dhalaalaa isku dhex galayaan hada dabku u gaabsan yahay hal uu joogay hadda saddexa ku celina waayo marib inay faa'iidin sheegaba iga karkarto haddaa haysid waxaa ku dari kartaa vanilya oo carfisada oo maxaa la dhahaaye oo biyaha ah waxaa ku darsan kartaa hayl wixii markaas haysatid haddaa rabtidna saana ku daysan kartaa marka ani hadda labadaba may ku daraayo laakiin waa ku darsan kartaa haddaa lacala isdhehaysid waa inaa marka waa kaasa waxaan kaloo kusoo daraa kareenkan aan ku darayaa hal qaando insha Allah si fiican ugu jeedin sidaan arkaysa ma jeedin sida usoo karkarayso siro qurux badan oo degan ya haddana kareenkii aan ku dareynaa hal qaando iyo wax yar aan ku daray haddaa rabtidna ku wada darsan kartaa laakiin ani waxaa rabaa qaybta sidaan ka reebtay inaan hadhow kaleeto dusha kasii mariyo hadduu ilaa yiraahdo hadana waa kaasa kareenka diyaar waaye ya doolshadii waa diyaar kareenkii waa diyaar waxaan sugeynaa hal mar intuu
waxyar kasoo budo oo kasoo burburo ya waxyar mujeedin indho soo yeelanooya markaan diyaar waaye mujeedin saasti mujeda hoosta kama gubanin kuma dhegin ya marka waxay ku noqonaa waxyar oo macaan badan ya kareem yar oo caadi ahayn marka waa kaasa hadda kareenkii waa diyaar waan dejinaynaa hadaa kusii hayno naga qabsanaa hadhow kaleeto marabna marka karis uma dhibna ma fahanteen maasha Allah tabarakallah marka dabkaan ka damine waana ka qaadeynaa waxaan sameynaynaa marka doolshadii waa yara dulduleynaynaa sidaas dulduleynaynaa kadib waxaan ku shubayaa waxyar caano oonan badnayn kadib waxaan ku shubayaa kareenkii aan diyaariyey akaasa qeybaan ku shubaa way u badan yahay inuu saas ugu batana ma rabo macaanka saas u badan inuu fiicno hadda waxaan sameynaa qaybta ku harta kareenka meela dhigan kartaa qasab ma inaad daabisid marka waxaan sameynayaa kareenkan saa ujeedin waa haaf ayaan xoogaa kusoo qurxinaynaa insha Allah kadib waxaan sameynaa qorigii aan hadaaya ku dulduleelinaa soo qaadanaa wax weyn maaha waxa laga rabaa wax yar oo iska sharxaado qurux yar noqoto marka waa kaasa marka hadda dhameeye sida aragtiinba hadda waxaan sameynaynaa wax yaroo loosa geesaa kasoo saarayna insha Allah looskaan sheegaya waa kana kaas ayaan kasoo saarayna insha Allah geesaha marka waxaan sameynaynaa waa kaasa waa kaasa marka hadda ku dhameeyay looskii marka keegi sidaas quruxda badan ay noqotay yaa maasha Allah tabarakallah
waxaan isku dayaa inaan soo gooyo si fiican ugu jeedinaa file waxaan soo jaraynaa insha allah saxan soo saaraneynaa nala socda marka waa kasaa markaa jarnay hadda waxaan soo qaadanaynaa insha allah saxan soo saaraneynaa hadkii aan arki lahayn ujeedin doorashadii sidaas quruxda badan ee noqotay insha allah tabaarakallah markaasaa sidaas quruxda badan ee kaatay maasha allah tabaarakallah waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen ka heli doontiin insha allah biidnillah waa kaasa qaybtaa ka bixiye haddaa si fiican u jeediin qaybtaan ka bixiye waa taasa salkeeda hoosana waa kaasa maasha allah tabaarakallah balwaa kaasa si fiican ugu jeediin waan jaraynaa insha allah arkaysiin sidaas quruxda badan hoosteeda waa kaasaa indhaha leh maasha allah tabaarakallah kullee qofkii dhadhamiyo leeg sheekeen karo insha allah idinkan waxaan idin leeyahay soo tijaabiya soo broobeeya markaas asxaabey intaas sirtaan idin waday sirtiisa rabay inaan idinla wadaago asxaabteeda qaaliga meelba dunida ka joogtaan haddana waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu